askari ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dowladda Ukraine ayaa saaka waa berigii oo Khamiisa wuxuu rasaas oo ka dhex bilaabay goob ay ku sugnaayeen ciidamada militariga ee dowladda Ukraine iyadoo aan la garanaynin sababta rasmiga ee ka dambaysa. Askarigan ka tirsan ilaalada qaranka ee dowladda Ukraine ayaa toogasho ku dilay sida la sheegay ilaalada warshada ay adeegsadaan ciidanka militariga oo ku taala bartamaha dalka Ukraine lamana garanayo sababta, waxaana halkaasi uu ku dilay 5 ka mid ah askarta militariga ee dowladda, kuwa kalena waa uu dhaawacay. dhacdadan oo waa berigii saaka oo Khamiisa ka dhacday magaalada lagu magacaabo Dnipro oo ah meel ay ku yaalaan warshadaha gantaalada ee dowladdaasi Ukraine ayaa lagu warramayaa inay dhacday kadib markii xilli la soo saarayay hubka ay isticmaali lahaayeen ilaaladan sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay dowladda Ukraine. lama garanayo cidda uu ka amar qaadanaya askarigaasi inuu qayb ka ahaa qorshaha weerarka la doonayo Ruushka inuu ka bilaabo gudaha dalka Ukraine ama ugu yaraan uu bilow u ahaa saansaanta colaadeed ee gudaha dalkaasi. askariga ayaa weerarka u adeegsaday mid ka mid ah qoryaha Ruushka uu soo saaray ee AK-47 kadibna goobta ayaa la sheegay inuu isaga baxay. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Ukraine ayaa intaasi ku dartay in natiijada baaritaanada ay socdaan 5 qofna ay ku geeriyoodeen weerarkaasi oo askariga uu fuliyey, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. warbixinada soo baxaya waxay sheegayaan 5 kale oo ka mid ah askarta militariga dowladda ee warshada ku sugnaa inay dhaawacyo daran ay ka soo gaareen. booliiska ayaa baadigoob waxay ugu jiraan askariga baxsaday iyadoo ugu yaraan loo badinayo inuu u cararay dhanka xuduudda. weerarkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli xiisad xasaasi ah oo ay wajahayaan ciidamada Ukraine ee ka taagan tahay xuduudda labada dowladood ee Ukraine iyo Ruushka. militariga Ruushka ayaana ciidamadii ugu badnaa wuxuu ku ururiyay meel ku dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaagay Ukraine, waxaana xubnaha gaashaanbuurta NATO ee eedeyn adag ay u jeedinayaan dowladda Ruushka taasoo ah inay qorsheynayaan duulaan ay ku qaadaan dalkaas. dhinaca kale xukuumadda Moscow ayaa beenisay eedeymaha kala duwan ee loo jeedinayo ee diyaarinta weerarka, waxaanay raadinayaan damaanad qaad amni oo buuxa oo ku aadan in gaashaanbuurta NATO ay joojin doonto ballaarinta ay ka samaynaysa dhanka bariga iyo sidoo kale inay isku fidinayso jamhuuriyadii hore ee Soofiyeedka, waana taasi midda dowladda Ruushka ay ka carootay. waxaa kaloo ay doonayaan marnaba dowladda Ukraine inaysan qayb ka noqon wadamada gaashaanbuurta NATO, iyadoo Ruushka uu doonayo qorshahaas inuu ka hortago. saansaantii colaadaha iminka ka dhex taagan labada dowladood ayaa cirkaas ku sii shareeraysa, maadaama ugu yaraan askartaani loo malaynayo inay dhaqaale ka heli karaan dowladda Ruushka si ay dagaal ay kaga dhex bilaabaan askarta dowladda Ukraine gudaha dalkaasi marka la eego.